إني تذكرت والذكر مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. السلام عليكم. 4 AM rule waa maxay sharciga loo yaqaano kicitaanka aroorta hore oo la kaco 4 aroornimo inay taasi ka dhigan tahay waqtigii dadka guuleystay wayna isdul taagi doonaa faa'iidooyinka ku jira iyo dadku waxa ay ka arkeen kicida aroorta hore gaar ahaan 4 iyo wixii ka dambeeya sida 5 ilaa 6. Why is it so important to get up early? Some of y'all don't want it. That's why you ain't got it. balse waxaanu ku bilaabi doonaa in nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu yiri Allahumma barik li ummati fi bukuriha ilaahi ummadayda u barakee arooriyadeeda hore subaxa hore aroorta hore iyo jarmaadada ilaahi ummadayda u barakee. saxaabiga xadiiskan warinaya wuxuu lahaa ganacsigaasna dadka uga shaqeeya subaxa hore ayuu diri jiray wuuna ka arkay faa'iidooyin badan asagoo ku dhaqmaya xadiiska uu ka wariyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam. البكور يقول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. هل أنتم من الذين شملتهم هذه الدعوة أم أن الغطيطة تحت البطانية حد اشتاء ودفى يلا من فضلك خاصة يوم الجمعة ويوم السبت بعضنا مع وقف التنفيذ ولا شيء ولا يستيقظ إلا مع الظهر ضاع عمره بذهاب صلاته وذهاب بكوره. ويقول صلى الله عليه وسلم صخر الغامدي رضي الله عنه صخرا هذا كان تاجرا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو أنه سمعه صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها فكنت أبعث غلماني في أول النهار فتناسلت أمواله وزادت تجارته. haddaba waqtigan la yiraahdo kicida aroorta hore waa 4 aroornimo iyo wixii la halmaale waa waqti iminka loo yaqaano time of successful people waqtigii dadka guuleystay taas oo macnaheedu ay tahay in dad badan ay tijaabiyeen kicida aroorta hore kadibna ay ka arkeen faa'iidooyin badan heer ay ka gaareen dad caan ah dad maal leh dad gaaray darajo intina badan aad ku hamin lahaydeen. waxaynu ognahay adduunka inta badan shaqooyinka in la shaqeeyo maalinkii taas macnaheedu ma aha habeenkii la shaqeyn habeenkii waa la shaqeeyaa laakiin shaqooyinka percentage ahaan waxa badan shaqooyinka la shaqeeyo maalinkii gaar ahaan shaqooyinka maalinkiina waxay bilaabmaan 8 iyo wixii ka dambeeya haday noqoto xafiisyada haday noqoto goobaha waxbarashada goobaha dawladda iyo goobaha ganacsiyada khaaska loo leeyahay taasoo macnaheedu ay tahay markaad kacdo 4 aroornimo waxaad haysataa ugu yaraan 4 saacadood ama ka badan oo u dhaxaysa xilliga shaqada bilaabi lahayd iyo xilliga aad toostay. The average millionaire wakes up at 4 AM. So it started off 4 o'clock in the morning where I'd start with my cardio, then I'd have breakfast, and then I would go to the gym, and then I'd go to work. On a normal day, when you are very productive, think about how much you can actually get accomplished in 3 hours. If you seriously put your mind to it, you can study several chapters for that upcoming exam. You can read an entire book of about 150 pages. You can get a full workout, shower, and take your time getting dressed in 3 hours. You can type several chapters of your book in 3 hours. 4 saacadood waxaad ku qabsan kartaa waxyaabo badan haday noqoto inaad wax baranayso ama online ka baranayso ama aad iska self study u sameynayso ama aad ku fushanayso hawl aad ku gooniya isku soo wada duuduub kicida 4 aroornimo aad kacday shaqadaaduna ay tahay ka soo qaad 8 iyo badhka taasi waxay ka dhigan tahay inaad haysato ugu yaraan 4 saac ama ka badan oo aad ku fushan karto hawl marka adiga ku gooni ah hawl marka adiga ku khaasa aynu u nimaadna dadka tijaabiyay kicitaanka 4 aroornimo iyo wixii la halmaana mulkiilaha ama madaxa ugu sareeya ee fulinta shirkadda Apple Tim Cook
wuxuu leeyahay waxaan kacaa 3:45 waa sida daily lifekiisa ama maalinlaha shaqadiisu ay u bilaabmato asagoo ka arkay faa'iidooyin badan inuu kaco subaxa hore dad badan ayaa tijaabiyay kaliya ma aha team cook dadka tijaabiyay dad badan oo caano shirkado leh milyaneer bilyaneer ayaa tijaabiyay subaxa hore oo la kaco inay faa'iidooyin ku jirto. What I'm saying is, you can get 3 hours closer to greatness in 3 hours. Tim Cook, the CEO of Apple, wakes up early. Bob Iger, the CEO of Disney, wakes up early. Howard Schultz, the CEO of Starbucks, wakes up early. Dwayne "The Rock" Johnson. taas oo ku biyashobanaysa markii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu lahaa ilaahay ummadayda u barakee subaxa hore barakadaas oo aanan ka dhignayn inuusan waqtiga kala baraka lahayn sida culimadu ay leeyihiin maaha in subax hore wixii ka soo haray aysan baraka lahayn uu leeyahay barako ay leeyahay culimadu oo barakadii kaba maqna laakiin waqtigan waxa loogu khaas yeelay waa waqtiga ay dadku kacayeen waa waqtigii firfircoonida waa waqtiga dadku intooda badan acmaashoodii iyo shaqooyinkoodii maalinlaha ah uu bilaabmayay laakiin taa macnaheedu ma aha in waqtiyada kale aysan baraka lahayn waa maxay marka waxyaabaha faa'iidooyinka kale ee ku jira kicidda subaxa hore waxaa ku jira la leeyahay in subaxa hore jawigu degan yahay inaad soo kacday in maalin cusub ku bilaabmayso inaad ka soo kacday hurdo aadna qorsheynaysid maalin cusub iyo qorshayaal cusub faa'iidooyinka ku jira kicidda subaxa hore waxaa la leeyahay waxaa kamid ah in ay yar yihiin in lagu soo waco xilligaas waayo waxaynu ognahay 4 aroornimo iyo wixii la halmaala in uu yar yahay kolalka kaaga imaanaya wadankaad ku nooshay gudihiisa iyo banaankaba waxaa sidoo kale yar text message waxa loo yaqaan ama fariimaha gaagaaban ee qoraalka la isugu diro faa'iidooyinka kale ku jira waxaa kamid ah helitaanka aad helayso waqti aad uga jawaabto iimayladii shirkadaada ama shaqooyinkaaga ama adiga si personal lagugu soo diray inaad dib u fiiriso aad ka jawaabto hadaa tahay mulkiila shirkad hadaa tahay qof caadi ah oo message ay uga yimaadeen dhan family iyo dhan friends inaad u hesho waqti aad jawaabaha ku siiso laga yaabaa markaa shaqada maalinkii gasho in aysan kuu suuragalayn waa faa'iidooyinka kale ayadana ku jira kicidda subaxa hore oo la kaco isku soo wada duuduub tijaabo la sameeyey dad badan oo yaa ka maqraati kacaya walowba gaalaha ahaadeen in arooriyada hore oo la kaco ay ku jiraan faa'iidooyin badan taasoo isugu biyashobanaysa gunaanadkuna uu noqonayo xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa jawaami'ul kalimka ilaahi ummadayda u barakay subaxeeda hore قال عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh